تحب وترضاه أنا قوي إنجنير فرحان أحمد محمود أهنا أفهييnkii hore xisbiga kulmiye North America waxaan jeclahay maanta inaan dhowr arrimood la wadaago mujtamaca reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaanba marka hore waxaan hawada u marinayaa bahda saxaafadda ee xaqiiqada iyo runta mar walba soo tabiya gudaha iyo dibaddaba waxaan leeyahay idinku dhisayaa wadanku haday baahi jirto haday dhibaato jirto hadii horumar jiro waxa lagu ogaada waa bahda saxaafadda oo kaalin wax koow leh kaga jira horumarka dalka hadii aan arrimaha aan jecelahay maanta inaan ka hadlo ugu horeysiyo abaaraha wadanka waxa ka jira abaara baahsan oo bari ilaa iyo galbeeda xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa duwaniga waxa ay la baaxadagayaan masiibadaasi baaxad leh oo ah mid aynu la qabno dalalka geeska Afrika intooda badan saameysay abaartan oo abaaraan wali hore inoo soo marin oo inagu cusub waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inuu raxmaadkiisa inoogu deeqo raxmadda ilaahay baa wada gaari karta uunka laakiin xukuumadda iyo xisbiga kulmiye dadaal fara badan bay u galeen sidii ay baahida shacabka ay wax ula qaban lahaayeen walina waanu wadnaa dadaalkii diyaarna waanu u nahay inaanu beesha caalamka mar labaad iyo mar saddexaad u gudbino baahida jirta inta ay leedahay walaalayaal waxaan leeyahay abaarta kulmiye ma keenin waa abaar aynu la qabno mujtamaca kale ee la midka ah waanu dadaalaynaa xukuumadda iyo shacab iyo dadka iyo dadweynaha waxaan inaan iska gaashano cid kaliya wax ma qaban karto qodobka labaad ee doonaya ka hadla waxa weeyaan doorasho ay nagu soo socota hadda kaararkii diiwaangelinta codbixiyaashii ayaa hadda socda xisbiga kulmiye waxa mar walba ka go'an inay doorashadu dhacdo iyadoo ay duruufo adag uu dalku jiro waxa ka go'an in dalka ay doorasho ka dhacdo xisbiga kulmiye in badan ayuu ka shaqeeyay horumarka waanu ka shaqeynayaa waana waxa uu maal gashaday mujtamaca maanta ee u codeynaysa taageerada badan ku helay waxa weeyaan ballamihii uu qaaday oo finaya waxaan leeyahay walaalayaal inagoo gacmo haysaysano oo si siman oo cadaalad iyo sharaf iyo karaama ku jirto aynu ka wada qayb qaadano doorashadaasi oo ah hanaan loogu talagalay inay wax badan ka qaban doonto dalkeena annagu haddaan noo xisbiga kulmiye abaabulkii iyo wacyigelintii iyo maaragtay budgetkii iyo shaqaalihii loogu talagalay waa diyaar waana wax laga shaqeeyay oo aanu suurto gelinay oo aanu tijaabinay horena loo tijaabiyay gaar ahaan waxaan leeyahay reer Mareykan ha ka qayb qaataan abaabulka iyo wacyigelinta oo kaalintii hore ay kaga jireen ha ka sii laabaan walaalayaal waxaan leeyahay xisbigu maanta waxa uu baahan yahay dhaqaaluhuna waxa weeyaan ta kaliya ee wax lagu furdaamin karo inaga oo xaaladaha adag iyo baahidaasi ay jirto waxaan leeyahay fariintaan u dirayaa waxa weeyaan reer Mareykan iyo reer kulmiye gudaha iyo dibadba meeshii joogan waxaan leeyahay xisbigu maanta dhaqaalu u baahan yahay $1 $2 $10 $5 $100 على كران قف كستا وحو أوده حسبك كلمية ما أنت وحو ديارو ياهي إنا إسكاشنو قعمها إسقابسنو سيدا وقود أخصيها بدنا إنو هميلة إنو قد أبعنا waxaan jecelahay maanta inaan ka hadlo 18 May baynu ugu soo socdo waa maalin qaran waa maalin farxadeed waa maalin ummadeed waa maalintaynu jiritaankeena iyo dimuqraadiyadeena dib u nooleynay walaalayaal waxaan leeyahay gacmaha isqabsano wadajir aynu wax ku doono sharafteena iyo karaamadeena ilaalino midnimo wax lagu helaa reer Somaliland waa qoys maanta waxaan jecelahay reer Somaliland 18 May oo duruufay jirtaan awalba innaga gacmaha isaysanay ceelo inoomay qodnayn cidina inoomay qodnayn aynu isku tashano aynu noolayno maalinta 18 May waxaan kaga baxayaa waxa weeyaan walaal haddii nabadgelyada iyo ma aragtay kala dambeynta iyo sharcigu uu halaabo cidina noqon mayso cidda ay maanta tahay xildhibaan baan xasaanad helay baayac mushtar baan shaqaysanayn iskuul iyo waxbarashaan jiraynin
caafimaad iyo dhakhtar baan la helaynin ceel iyo waxaan ku uri gaadiid iyo wadooyin baan hirgelaynin nabadgelyada aynu ka shaqayno oo ciidamada nabadgelyada aynu si gaara aynu gacan u siino ciidamada maalin walba u taagan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan ee maalin walbaaba meel kasta oo ay taagan yihiin dhiigooda iyo dheecaankooda oo hufuro ee cadeeda u taagan iyo ka yeeli mayno inaguna ka yeeli mayno idinkuna ka yeeli maysaan ilaahayna raalli ka noqon maayo intuu inan yaroo dhargay oo soo quraacday askariga kalarka jiijiito ama sharci uu fulinayo oo waax garsoor ama waax fulinayo oo dawladdu ay leedahay amar uu sido inuu hor istaago yeeli mayno waxaan leeyahay maanta nabaddu markay joogto nin kastaa 2 nin leeyahay Somaliland waxay ku caanamaashay waa nabadda waxaynu geeska Afrika iyo wadamada horumarayna aynu ka iibinaa waxa weeyaan nabadgelyada haysano nabadgelyada maanta hadii aynu sida ay tahay aynu wax ka bedelo oo aynu kala dambeynta ilaalin weyno oo aynu xeerka ilaalin weyno oo aynu shuruucda dalka u yeelo aynu waxba kala duwanin geesaska Afrika iyo maaragtay meelaha budcad ay ka jirto waxaan leeyahay askarigaasi maanta marka uu suuqa Hargeysa marayo ee ka fikiraya inuu nabadgelyada sugo isaga oo mushaharku qaata ay yar tahay isaga oo maaragtay agabka iyo qalabku adeegsanaya ay tahay mid maani wala oo maaragtay aan automatic wali ahayn oo facility-giisa aan u dhamaysnayn in lagu daadaaco oo lagu dibradhacsado oo lagu qooqo yeeli mayno waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waxa ka go'an wada noolaanshaha iyo cadaaladda sinaanta iyo midnimada iyo wax wada doonku oo waxaanu ku caanamaalay waxaan ku soo gabagabeynaya waxa weey reer Somaliland maanta ninka wax xumeynaya aynu ka soo horjeedsano aynu gacmaha isqabsano aynu midnimo wax ku wada doono aynu wada jir ka shaqeyno waxaan kaga baxaya waxa weey Somaliland maanta marxalad fiican bay maraysaa ilaahayna wax loogu mahadiyo waxaan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh